ما أنا بوليس مو بوتيك إجتك أكو ولا إجتك حقيقة ميل آدم كريم هذا كينا مشان ما هدي ميل آدم تقنا لو ملينا قفا هذا كينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي دا قيمة يقدر انت يقام مضانو ملكستو هدا فاها عالم كاكاقنو شايسي كستادي داون يسبو وعنو وناكسن هذا تايكولن كاقوري سبو تجنك وعكا سيني تسكريب تيسار توسيني شار قريسو لايك تناصر markaad nuxurka hadalka soo bogato fadlan maaminood kubanti caafimaad qabo wixii fikirkaaga xaq hoose igula soo wadaagto ayayo wixii cusub iga warayso waxaad maqashana ka fiirso haddaba saacadihii la soo dhaafay waxa buraha bulshada ku kulantay si weyn u gilgishay hadal haynta qadar murtimaal iyo waliba gabadhiisii hore Fihima haddaba dadyo badan oo buraha bulshada isticmaalaya siyaabo khaldan uga falcelinaya halkaas oo ay ku qaadaadhigayeen qisadooda iyo waliba sheekooyinkooda haddaba waxay ku nool yihiin wadanka UK halkaas oo ay Fihima keentay isaga qadar murtimaal haddaba dadyo badan ayaa waxa ay leeyihiin waxa dib looga laabtay sharcigii waxaana ka dhacay sharcigii halka ay qaar kale leeyihiin haddaba waxa uu go'ayso dib ugu soo qaato iyo halkii uu markii hore ka ambabaxay oo ahayd guriga Fihima markii uu baasaboorka gacanta ku dhigay ayuu bulshadiisa qaatay isagoo ka guuray gabi ahaanba Fihima iyo waliba gurigeedii haddaba dantu ka adag markii uu baasaboorku ka dhacay ayuu dib haddana u soo qaatay xamaamadaasi oo halkaas haddana dib u soo degay haddaba Fihima ayaa ku gacan saydhay guriga marna la sii baxay marna la soo galay inaanu ahayn guri mar walba iska furan balse ay cid ka taliso Fihima ayaa ku gacan saydhay inaanay soo gali karin guriga balse haddaba qadar murtimaal ayaa ku andacoonayay inay qabo xaaskiisina tahay haddaba waxa ay sheegtay in adeerkii uu tago sida iyadoo hadalka u dhigaysay haddaba dadyo badan oo baraha bulshada isticmaalaya siyaabo khaldan uga falcelinayay keebaa saxan keebaa khaldan haddaba qof mar hore bulshada ka qaatay oo ka tanaasulay oo waliba mar hore isagu go'aan qaatay ma ahayn mar labaad soo laabtay dadka qaar kumentiyada ku soo qorayeen halka ay qaar kalena lahaayeen waa uu saxan yahay haddaba dadyo badan ayaa lahaa waxa laga noqday sharcigii waxaana loo diiday sharcigii gabi ahaanba haddaba dacwooyin badan oo ku socday bay dadka qaar leeyihiin ayaa sababay in sharciga dib looga laabto oo isaguna u gidaarada iyo waliba meelaha dadka loogu talagalay bilaa sharciga inuu haydo dhamaanba waxa laga noqday sharcigiisii haddaba waxa uu dib ugu soo laabtay haddaba Fihima ayaa diiday gabi ahaanba inay ka soo xareyso dhaxanta ka dhacaysa UK taas oo ah mid aad u qabow iyo waliba barafaad u daran haddaba qadar murtimaal ayaa hadda wuxuu dhacayaa istreedada ama sharacyada UK kaas oo aan meel uu imika ku sugan yahay ilaa hadda la garanayn haddaba waxaad arkaysaan qoraalka iyo waliba fiidiyoga hore aan ugu soo duubnay ee hordhaca isagoo oo cabanaya sheegaya in xaaskiisii tahay haddaba halka iyadu ku andacoonayso inuu adeerkii qabto oo waliba ay guriga uga baxdo haddii kale booliis ay ugu yeeri doonto haddaba dadyo badan oo baraha bulshada isticmaala ayaa arrintan qaadaadhiga iyo waliba baraha bulshada Facebook Twitter iyo waliba TikTok Snapka iyo waliba pageka ayaa si weyn loogu hadalhayaa arrinta haddaba dadyo badan ayaa isweydiinaya hadduu markii hore bulshada qadar qaatay maxaa dib u soo celiyay halka ay qaar kale leeyihiin waxa ka dhacay baasaboorkii oo dib u cusboonaysiinta ayaa lagu xumay in adareskii hore loogu soo diri doono halkaasna uu tagi doono haddaba markii uu dib u soo laabtay cawskiira waa lama huraale ayaa Fihima gabi ahaanba waxay ka soo xidhatay albaabada iyadoo dibadda ay u saartay halkaas oo dhaxan iyo baraf aad ay ka dhacayeen haddaba dadyo badan ayaa siyaabo khaldan uga soo falcelinaya isaga oo sheegayna in uu ku gacan saydhay wacadkii iyo waliba xiriirkii jacaylka labadooda ka dhaxeeyay